kubadda cagta loogu sameeyay xeerka offside-ka muxuu offside ku noqday xeerka ugu muranka badan kubadda cagta 1800 meeyadii kubadda cagtu wax xeera ma lahayn kubadduna waxay ahayd mid foodo ah oo qof walba istaagi karo meeshuu doono ciyaaruhuna waxay noqdeen kuwa aan xamaasad lahayn oo isku dhexyaac badan ka jiro waxa la arkayay in ciyaartoydu ay si agstaagi jireen goolka iyagoon cidina ka hortaagnayn sidaa darteed daafacyadu waxay dantu ku kalifi jirtay inay iyaguna ilaala ka hayaan oo aysan kubad dheelin saasayna ciyaartu ku noqon jirtay mid qalafsan oo ilaala la iska wada hayo 1863 ayaa la keenay xeerka offside-kii ugu horeeyay waxaana keenay Football Association-ka England kaasoo ahaa marka qaybta weerarka la joogo haddii aad kubadda ka horeyso marka la baasayo saddex difaacna ka horeeyaan waa offside waxa la rabay in ciyaarta laga dhigo mid xamaasad leh laakiin taa beddelkeeda weerarka ayaa adkaaday goolashuna waa ay yaraadeen oo waxa mucjiso noqotay in gool la dhaliyo 1866 xeerka waa la jilciyay waxaana la ogolaaday in ciyaaryahanku ay ka horeeyaan laba difaac oo haddii laba difaac dhanka goosha ka xigaan oo loo baaso ay tahay offside halka markii hore saddex ka horeen lahaayeen waxay ahayd xilligii ciyaartoydu bilaabeen inay goolal dhaliyaan oo kubadda cagta xoogaa ayaa dib u soo noolaatay balse isbeddelkii ugu weynaa wuxuu yimid 1925 xeerka offside-ka waa la fududeeyay si ciyaartu u noqoto mid xiiso leh oo tirada goolasha la dhalinayay waxay kor u kacday 35% haddaba sidee xeerka offside-kan u shaqeynaya oo ah kan hadda jira ugu horeyn waa inaad ogaato in offside-ku ka dhaco marka garoonka la kala qaybiyo qaybta goosha weerarka lagu yahay marka la eegayo xeerka offside-ka goolhayuhu waa daafaca koobaad halka ciyaaryahanka ugu dhow goolhayaha uu yahay daafaca labaad haddii ciyaaryahanka weerarka ah uu daafaca labaad ka xigo in yar goosha oo loo baaso oo uu qabsado waa offside markii offside-kii la fududeeyay ciyaaruhu ay qurux badnaadeen laakiin weli muranku ma dhammaan waxa la keenay tiknoolajiyad casri oo lagu magacaabo VAR Video Assistant Referee oo ah nidaam loogu talagalay in lagu hubiyo go'aanada garsoorka ee dhaliya muranka sida offside-ka goolasha iyo rigolayaasha VAR waa la keenay oo ah tiknoolajiyada ugu dambeysay balse murankii weli waa uu taagan yahay waxaan maqalnay erayada sida offside by taw oo ah faraha ayuu kula jiraa offside iyo muran aan dhammaanayn si loo xaliyo muranka VAR ayaa waxa lagu soo kordhiyay nidaam lagu magacaabo SAUT Semi-Automated Offside Technology nidaamka ayaa ku shaqeynaya sidan oo wuxuu leeyahay intaasoo nooc oo kala duwan oo kaamirooyin ah oo isaga loogu talagalay waxaa garoonka lagu rakabayaa 12 kaamirood si ay toos ula socdaan ciyaartoyda iyo kubadda sensor ayaa ku dhex jira kubadda waxaana lagu ogaanayaa goorta la taabtay kubadda si degdeg ah software AI ah ayaa la socda booska ciyaartoygu taagan yahay iyo haddii offside ku jiro intaas oo la isku daray ayaa ah SAUT laakiin weli mararka qaarkood waa uu yimaadaa muranka offside-ka laakiin si fudud ayaa loo xaliyaa haddii xeerka offside-ku uusan jiri lahayn sidee bay maanta noqon lahayd kubadda cagtu